magacaygu waa Marwo anaa bisadan leh oo la daweynayay marka maalintii bisadaydu xanuunsatay aad baan u murugooday ismaan lahayn dhakhtarbaad Hargeysa ka helaysa oo daweynaya bisada anu qurbahan ka imi oo Ingiriisan ka imi xawayaanka waa la daneeyaa waa la daweeyaa marka aynan saaxiib nahay oo ay igu soo tilmaamtay jaamacadan oo ay igu tiri xawayaanka lagu daweeyo bisadaha iyo iyadiyo arigaba waxa ku dhigay kaada bisadan muddo 24 saacadood ilaa 48 saacadood bay kaadi ku dhiganayd runtii may kacayn kaadi baa ka buuxsantay qaybta halka muxuu xundurtaagteeda kadib waxaan u fidinay adeeg caafimaad oo nagu qaatay 12 cisho inaan ku dhamaystirno waxaan gelinay catheterkii markaan gelinay ku guuleysana kaadina dibadda ka keeno waxa dhacay waxa develop gareysay infection systemic infection haddana waxaan u qornay course antibiotic 7 cisho antibiotic ku guuleysanay haddana waxa dhacay meesha kaadu fadhiisata afras isu bedeshay haddana afraskii baan manage gareynaa daweynay alxamdulillah bisad way fiicantay way fiicnaatay dawadina way dhamaysatay daway ciyaaraysa bisadii kale la dhashay walaalaha ahaayeen oo laba kale way la ciyaartaa markii bisadeedii imika la daweeyay aad baan ugu faraxsanaa oo adiga imika arkeen bisadeedu salaaxay alxamdulillah walaalihi la ciyaaraa caafimaadkiisu waa 100% aad baan ugu faraxsanaana horta dadku way la yaabaano bisad la daweynayay way la yaabayaan dadkeena oo veterinary-ga ma garanayaanba marka hadda la yiraahdo bisad halkan lagu daweynaya markan clinic-ga keenay qayliyaysa ama aan qabanayna ama aan suuxinayno qayladooda ay dadku daaqada noo soo istaagan clinic-ga bisad see oranaysa iska siidee waa miskiinada marka ma fahansana dadkeenu in bisadaha la daweyn karo caseska intaan jaamacadda Golis Clinic-geeda joognay ama aan joognay si guud waxaan qabanay in ka badan 82 case oo isugu jira xayawaano kala duwan